waxaa si xoogan u soconaya barnaamijka gogol xaarka dib u soo celinta shirkadii Somali Airlines iyo waliba diyaaradaheeda muddo sanadaha kadib wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Omar ayaa maanta waxa uu booqday xarumaha cilad bixinta diyaaradaha qaaska ee madaxda iyo waliba kuwa shacabka ee shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines. wasiirka iyo waliba wafdigiisa ayaa waxa ay soo inayeen qaabka ay u socoto shaqada lagu cilad bixinayo dhowr diyaaradood oo nooca waaweynka ee Airbus-ka loo yaqaan iyo waliba kuwa yaryarka. injineerada gacanta ku hayay xaruntan ayaa waxa ay sharaxaad ay siinayeen wafdiga iyaguna ka sheekeynayay marxaladihii ay soo martay iyo waliba goobaha cilad bixinta ee diyaaradaha Turkiga. iyaduna wasiirka iyo waliba qubaradii la socotay ee ka soo shaqeeyay Somali Airlines lagula dardarmay in ay muhiim ay tahay in la helo goob noocan oo kala ah inta aysan howlgelin Somali Airlines. xarunta tababarka duulimaadka ee Turkish Airlines iyaduna waxa ay ka mid ahayd goobihii ay booqdeen wafdiga. baylodyo baryaalka xaruntan ayaa wafdiga sharxaad siinayay qaabka iyo waliba sida loo qaato dadka doonayo inay bartaan duulinimada. wasiir Omar iyo waliba duuliye sare Ciidruus ayaa waxa ay gudaha ay u galeen qalabka lagu barto duulinimada. qalabkaasi oo u samaysan sidii diyaaradii oo kale iyagoo tijaabo duulimaad sameeyay. wasiir Omar iyo waliba duuliye sare Ciidruus ayaa tijaabadii ay sameeyeen ku guuleystay. sheekada aadka ay xiise gelisay ayaa waxay ahayd sheeko dhex martay kabtankii hore ee Somali Airlines mudane Ciidruus iyo waliba duuliye ka tirsan xarunta Turkish Airlines. kadib markii duuliyihii Turkiga uu weydiiyay kabtan Ciidruus diyaaradihii uu soo duuliyay, kabtanka ayaa waxa uu ku jawaabay dhowr diyaaradood oo isugu jira kuwa rakaabka iyo waliba kuwa dagaalka, isagoo soo tiriyay 5 nooc oo ka mid ah diyaaradaha. kabtankii Turkiga ayaa gacan geliyay kabtan Ciidruus isagoo uga jawaabay waa in aan ku dhaha macallin. taasina waxa ay ku cadeynaysaa heerka ay gaarsiisan tahay aqoonta duuliyaashii Soomaaliyeed. ilaa halkan waxaa la soo gaarsiinaa wasiirka soo celinteeda ugu dadaalay hatta juhud wasaar ugu wada sidii lagu soo celin lahaa Somali Airlines, duuliyaal cusub lagu tababar lahay, farsamayaqaano injineero lagu diyaarin lahay. dariiqeedana waa haynaa oo kana hadda meeshan aan joogno sidaas ayaan magaratay. كل سكاشن كان كود ميس كورة شعورتها لا شعورت وحبي صح مرة كود ميس حاجة ودنا كم سفرت وحصفنا جيبوتي دار السلام كينيا ما نبغى باتيجي ما شاء الله. wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar ayaa waxa uu warbaahinta uga warbixiyay kormeerkii uu ku tagay qayb ka mid ah xarumaha waaweyn ee Turkish Airlines. waxaan booqasho ku tagnay Turkish Technique iyo Turkish Aviation Schoolka. labadaba waxaan raadinaynaa inaan ka soo barano ama aan fiirino inaan la samaysan karno xiriir ku saabsan sida diyaaradaha loo hagaajiyo marka ay xumaadaan wax ka xumaadaan. soo hangarada diyaaradaha oo dhan waxaan tagnay meelo waaweyn oo diyaaradaha nooc kasta oo leeyihiin lagu sameeyo haddii ay wax gaaraan ama dib cusboonaysiin lagu sameeyo diyaaradaha. إن شاء الله تعالى وحيابها أندوني إن وضعك كسمينه ودكتين إيربور هذه الغرو certifications كلا بالله كلا دون إنه لكل ما وإنه إيربور هنجر له هنجر هذا يعني كشقين إن سيدي أن كسمة سنة لهن أما private اللي كسمة سنة أما دولة تركيا Turkish Airlines إن وضع سمة سنة دولة كرر الموضوع maalinta jimcaha ayaan arintaasi kala hadli doonaa si uga duulahaydna laakiin maanta meesha ayaan kormeer ku soo marnay isaga oo size kala duwan ana waan soo aragnay iyo diyaaradaha noocyada ay hagaajiyaan mechanic-intii electricians iyo dadka technicians ka ahaayoo dhan waan soo aragnay alxamdulillah. kadibna waxaan tagnay aviation schoolka that meesha pilotyada lagu tababaro. ujeedada aan halkaas u tagnay waxay ahayd CEO-ga chairman-ka oo Turkish Airlines ayaa wuxuu naga codsaday inaan halkaas soo fiirino si aan uga wada hadalno Somali Airlines insha Allah taala pilotyada aan rabno in loo train gareeyo
meesha aan rajaynayna in lagu train gareeyo weyn hadduu ilaahay ka raali noqdo isagana jimcaha ayaan wixii go-aankii ugu dambeeya aan wada qaadan doona hadduu ilaahay ka raali noqdo. سلمان جمال سعيد تي في عالمي يونيفرسال مقالة اسطنبول.